بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، waxaan soo gaadhnay gabagabadii bishii Ramadaan, majaalisu ramadaaniya gabagabadeedii baynu maraynaa. xalqadanna waa xalqadii insha allahu tacaala inoogu dambeysay. marka dhowr su-aalood oo ka haray su-aalihii hore maalinkii hore aan sii daynay ayaan doonaynaa sheekha insha allahu tacaala inaan weydiino, maadaama bishii ramadaanna gabagaba iska tahay, jalsadana ay tahay jalsadii inoogu dambeysay majaalis ramadaaniya. ilaahi subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan khayr iyo barako ah inoogu khatime. sheekh xasan, su-aasha koowaad waxay leedahay takbiiraha ciidda, takbiiratu lixraam iyo takbiiru qiyaamka looga soo kacayay sujuudda ma ku jiraan takbiirooyinka aad tilmaantay laysku khilaafsan yahay? bimacnaa todobada takbiiro hore aad sheegtay ma ka mid tahay takbiiratu lixraam? shanta takbiirada dambena ma ka mid tahay takbiiratu qiyaamka looga soo kacayay sujuudda? jazaaka allahu khayr sheekhana. وإياك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسألة خلافية بين أهل العلم من الصحابة والتابعين. سيدا صوابك أنا وحاوي لغو ترين ماي تكبيرة الإحرام قوري بي أنتهي marka hadaad qabto toddoba ragcad koobaada iyo shan ragcad dambe toddobadu way ka maran tahay, way ka madax banaan tahay takbiiratul ihraam. shantuna way ka madax banaan tahay takbiiratul qiyaam. qiyaamku way ka madax banaan tahay. saasa raajixa, laakiin waa mas'ala khilaafiya bayna salaf. culimo qabta jirta waa lagu tirinaya oo toddobada hore waxaa ku jirta tii xidhashada, shanta dambena waxaa ka tirsan takbiirta lagaga soo kacay fadhiga ee istaaga lagu soo aadayay. laakiin sida sawaabka waa in laga saaro takbiiraadku ay gooni ka yihiin takbiiratul ihraamka iyo midda qiyaamkaba. wallahu a'lam. jazaaka allahu khayr aljazaa. sheekh, isla kelmadii ciidda su-aal yaroo calaaqa la leh, maadaamaad rajaxday in ay leedahay salaatul ciideynku laba khudba ay yihiin, mimbarna una meeshii uusan oolin, khadiibku miyuu fadhiisanayaa mise soo taagan unbuu khudbadii kala goynayaa? jazaaka allahu khayr. وإياك. خطيبك وحيليا مصليه كتكدي يصلي جبوا فريسانيا كدبنا وساقعيا. هذه كرسي يرلو دي كرو كرسي أو كفريسان كرانا كرسي منبر ما منبر هو كدوين ياي منبر هو شيء اللي يستاجو وروح عدم بقى حنبارية مركا مصليه يصلي كتكدي هدو فريستو وساقعنا ويوبنانتاي هذه كرسي يرلو دي كرسي تكفريستو دنا استاجو كخد بيانا ويوبنانتاي. بارك الله فيك. جزاك الله خير الجزاء. شيخنا سائل كان وحولي هاي وحن كنا والله ونجوغا ودنك باكستان. صونكا iyo afurkaba oo ciidaba labadaba dadka ama caalam islaami way ka dambeeyaan, waxayna ku andacoodanay sheegaan inaysan arkin bishii Ramadaan ayagu. marka sheekhana, maadaama wadanka ku noolnahay, ma waxaan la soonnaa caalamul islaamkan la soonnaa oo la afurnaa, mise waxaan la soonnaa iyaga oo la afurnaa? jazaaka allahu khayr. وإياك. بسم الله. waxaa laba qaybood. ruuxu hadduu asagu bishii arko, sida sawaabka ruuxu raacaya ma jira. haddaad adigu bishii aragto, ummaddii inteedii kalena ay dhahaan berita soomo waanu afuraynaa, bilna maanan arag, adigu waxaa laga rabaa inaad soonto. sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. laakiin haddii adigu aadan arag, muslimiintuna isku khilaafaan, bulshooyinka muslimiinta isku khilaafaan, xaggana isku mataalic la yahay, dhanka loo badan yahay in la raaco wey. haddaan usoo laabano su-aashii Baakistaan ku saabsanayd, ruuxa muslimka ee Baakistaan jooga ee inta badan iyagu way ka hadhaan muslimiinta intooda kale, bariga dhexe, Afrika, muslimiinta way ka hadhaan qolyahaas hunuudda iyo bariga Asia ku noolba. inta badan waxay uga hadhaan khilaaf caqadi oo jiray u khilaafaan muslimiinta kale, ama khilaaf fiqi oo jiray u khilaafaan. marka waxaa ila quman mar hadduu isagu arag waa un laba qaybood hawshu. muslimiintu hadday u bataan maalinka in la soomo, muslimiintu dhankay u badan yihiin ha raaco ha soomo. hadday muslimiintu khilaafaan dhan loo badan yahayna uusan garanayninna, Baakistaan buu la soomaya lana afurayaa. xadiidkii marka Abu Hurayra iyo Caaisha iyo bacdu salaf waxay ku fasireen sida ayada ah: as-sawmu wa yawma tasuumuun wal-fitru yawma tuftiruun wan-nahru yawma yanharu an-naas. Tirmidhi wuxuu xadiidkaas bacdu salaf waxay ku fasireen
ummaddu meeshay u badan tahay baa soon iyo afurba lagu raacaya. marka haddii la iskhilaafo oo in la somo loo bato raac meesha loo badan yahay, haddii la iskhilaafo ood garan weyda dhanka loo badan yahay beledkaada la soon. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. جزاك الله خير الجزاء. شيخ سائل كان وحولي هي شيخ أذانكي صلاة المغرب ولد عين أيان مودة إلا جاري حلقة أفرقة كدب نوان أفوري وهي الكدب وحنو قادي إنا وقتي وليلا جارين مركب مالين كأياد إنسدا كو أفوري مسوق اللين يا وصونكي وإيجا جبي محاسي واجب يكون سمين كر يا شيخنا جزاك الله خير. وإياكم. ومسألة خلافية خلاف كنا حديثي وحسكيها هي قاعده ولو حيرنيان ولا سوق الضير يا مالك أيضا معايا أصل كحوها إن مالك باقي هاي وولي مالك أيسان رمان وقرح أيسان دعين روح مسلم وحال الربي إنه هبصده دعيتان كقرح هذا أمام ملا غالب أو كو أفره صادر تيد ما دام أصل كان أوجري أصلا أودك دقيقة قضاء لقربه بناء على قاعدة لا عبرة بالخطأ البين خطأه. هل كاسي لمرين لما اعتباريه قفك او عضاده انه قفيه بالحق باليقين والقطع. لما هل كاسي لمرين هو رد بدن فقاده كمده ودادنا waxay leeyihiin qada laga marrabo. xadiidka asmaa fi sahih al-bukhari ayay u daliishadaan maalin maalmaha kamida iyo saxaabada qaar kood afureen qoraxdii oo dhicnay iyagoo mooday qoraxda inay dhacday falam yu'maru bil qada'i ba xadiidka ku jira lama farin inay soo qadeeyaan. marka khata'aas في الغروب إلا الحقيقة وناكسن خطأ في الطلوع روح المسلم كأها مودي إنه سواقي برينا إسكس حورنا يكدمنا وقاضي قرحنا يبنان كتشوكتو وحالي واللوع عذر داري كانها اللوع عذر داري إن لي هذا وناكسن لكن وقياس مع الفارق بينيهن كاسنا وحوها أصل وبقاء الليل وجواز الطعام بوها والأكل كان أصل وحوها بقاء النهار وحرمة الفطر والطعام. marka adu dagaal baa ka jiray laakiin cumdadu waa xadiidka asmaa bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anha ba asal u ah ninka qado laga marrabo laakiin hadda kadib hawbsado afurkiisa aad iyo aad uga dadaalo Ilaahay ka cabso. جزاك الله خير الجزاء. الشيخ سائل كان وحولي هي صلاة تراويح ده أما بالتهجد ما الإسراعين كرا 4 ركعات أما 6 ركعات هذه جوابته هاتها الإسراعين كره أرنتها أيضا مع شيخ لو كذا ودليلها. بسم الله. جوابته حي والإسراعين كرا والإسراعين كرا 4 2 6 8 والإسراعين كرا. دليل كذا هو حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث أم سلمة في الصحيح في السنن وفي مسلم بأو الدليل إنه النبي إسراعين كرا مركا قاركود النبي إنه تكده 9 ركعات حرير أدعي جل صلاة الليل كيسة أو أتحيات طلبات وضم بيسكرية لا يجلس إلا في الثامنة رعادة سيدات كلية أي فرسانية يتعلم فرسانية كدبنا لبقى أبو النبي سمين جري إن أو سلام النقصده تاسد كل سلام النقص كدبنا ولي ماده صدح كلا أو وترا أما إن تو سلام النقصده إنه لي ماده لبرك عوض وجوري أوجعن كدبنا رعاد وترا إنها النبي واسمين جري تضبوا إسراعين جري مركا قال لعبوا إسراعين جري حديث عائشة في صحيح مسلم وحديث أم سلمة أي الدليل وهذا وحي كبر شيء حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى وحا لقى جواب إلا جوابه جوابتك عليه هو حديث عامة وعلى خصيصة فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعارض بين خاص وعام وحاكوا لقى جوابي وجواب خرج مخرج الغالب سؤال يا هيد نبي الله صلاة الليل كور مثنى هذا جوابته خرج مخرج السؤال مفهوم كسلامة اعتباريه لا مفهوم له أي مفهوم المخالفيسة دليل الخطاب كيسو وغير معتبر عند أهل العلم لكن سيدا وحاجة ورس إلا يداهدو وعام مخصوص إلا يداهدو نمن باكم مشغول اسكو ديني حديث كمسلم عائشية كأم سلمة الدوران نمن حتى كان ابن عمر في صحيحين بيكوفوا فين النقديين مركزي والبابا النقطي وحاوي way banaan tahay daliilkooduna saxiix ku yaala wallahu a'lam. جزاك الله خير الجزاء. شيخ سائل كان wuxuu leeyahay labadeedii waalid waxay dhinteen soonfur mana aysan soomin bishii Ramadaan xanuun daraadiis maxaan sameeyaa sheekh?
waxaad samaysaa waxba laguma laha hooyada iyo aabbaha hadday bisha ramadaan xanuun ku dhaafay ayagoon u suuragelin inay soomaanna ay xijaabteen ay oofsadeen ay dhinteen ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisto wax soono laga rabo ma jiraan haddiise aad ku qalbisan tahay inaad wuxuun samayso 30 maalmood oo raashina ka bixi itcaam raashin bixi طيب si aan u marino dariiqadii salafka qaarkood ay mareen ahaa ninkii soonku dhaafay tamakuni waaye waxaa laga rabaa itcaam baa laga rabaa laakiin sida raajixa ah qadaan ma laha dawaaba geeriyoodeen raashinna lagama rabo raashinku wuxuu daba joogaa aslu wujuubkii tamakunka in la helo mar haddii tamakunka la waayey waxba looma haysto ilaahay u dambi dhaafo subxaanahu wa tacaala wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء شيخنا سائلكم حلي هي الشيخ رمضان قف صوما هدي ودمعو إن أحيل دايستو حاسكيس إن أقل موضو إسلام كان سون كيس وكجة بيو أما عنو كدبنا أقل موضو حاسكيسي كفارة دي من لقولي هي سقف كاسي دنبي انتلك أيوكو دعي إنك هو عامي حريفة وي عامي حريفة وي كتب الفقه يكون أرجع السارق العاقل أو الظريف مركا فقيه وصاري ونقطة أقدر مركا ما أنت لو حصمين يا قاب أن حد سارق اللي هو فينين مركا مر نسات وحكي جوين يا مر ألعبت من طول ميل صاغ ونحن اللي روح كلا قاضية مركا مركا السوق جب أنت كفتن كلا قطة إنك أسقى قدوم بالوله إنك أسقى قدوم بالوله يا كفار واجبكما سيد الراجحة biyo ku afuray intuusan biyaha ku afurin buu soonku ka jabayba intuusan biyaha cabin uusan cunin buu soonku ka jabay limaada wuxuu niyeystay inuu afuro ومن نوى أن يبطل صومه بطل صومه قبل ذلك طيب انتوسن بيها بعبين أيو صومك جبيبا مركا كدبنا صوغو مفطرة أيوبا بيعبي هذانا مر صدحات بتلاوة كلا سي قاضو إسلام تسكن مشيرة مركا نيكا أساقا مالك رمضان وأفوري وكنت قديس ما لقربه وأنا كبيرة من الكبائر بالاتفاق والإجماع ممكن مالين رمضان وصومي كرو أصوم عردار شعي عليه كسر وقت تجاي بل حديث ضعيفة وحكيمة حتى سنة كلها هدوء الصوم الدم وكدع معي لبيه الطعام بلا هدوء الصوم وهذا أنا حجي حديثك هو باب الترغيب وإن لقاته والترهيب الذي سنمحك بدنا إليه إذا هو كبيرة من الكبائر إلى هو طوبة كينو هو شها كلابته إلى هو نغمات من الصمين أما كفاردي لغملها على رأينا أما عند الحنفية والمالكية والرواية عند الحنابلة كفارة واجبية لأن يوعي قبان كسد الله أفره بيه لغو أفره أما راشي لغو أفره أما قلم لغو أفره وإسمت سيدا قلمضو أي أوفي واجبية كفارة هي قضاها يبيه عبتانك يصونك كسلو جميع ولا مدياي مركا هو الخطر أيونك أقول عاي هذا كدي بصدور نقونين والله سبحانه وتعالى أعلم جزاك الله خير الجزاء شيخنا سألك أنه حولي هي معلنك عرورتا قرآنك يقول لك مسين كريا زكاة الفطر سهدان بحيو وان زكاة الفطر سيقف إسلام مركانا أنا نشيقين إني زكاة الفطر تاي ميغان صحيحة جوابته وحاوي معلنك وضو مسكين أما فقير يا زكاة الفطر والله سين كرا إلا شيغنا وناكسنتها لكن شرط معها روح الزكاة ما كانت سوى الزكاة فطري واتقرا صونكيغي ميغا غدونتي غدون هولها سوار دوجن iyo warwanaag way laakiin sharti ma macallimku haduu yahay faqiir iyo miskiin zakada way ku baxdaa haduusan ahayna macallinimo iyo waan jecel looma siin karo wallahu a'lam jazakallahu khair sheekh sa'il kan wuxuu leeyahay iyaduna hooyaday oo waayeel ah oo aan soomi karaynin fidyada laga bixiyo ma qaadan karayaa ama miskiina xaggana haystaa caruur agoona بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد سؤال شو حاول قرتي هو يدو وايلا وحلقة بحيا راشين كاسونك gabadh eedo agoon haysata ma qaadan kartaa sida miya su'aashu saas weeyaa jawaabtu waxa weeye way qaadan kartaa markaynu ka soo toona ra'yiga ahaa qaraabadu iyo caruurtaada iyo ilmahaadu biilkooda ma ku saaran yahay dad waalid ay hadii kale laga soo tago gabadhaasi agoonta haysatay day faqiir tahay agoonnimo looma siin karo agoon xoolaa la jira agoon aqniyaa jira yaan agoonnimada lagu khaldamin
marka hadday fuqara yihiin oo masaakin yihiin waa la siin karaa oo hooyada raashinkeedii waa lagu afurin karaa gabadheedii iyo caruurteeda qolyaasha haddii jira ninka lagu afurinaya raashinka asaga la siinayo waa inuu baaliq iyo mukallaf oo soomayay daliil ma laha hawsha ayadaa waa iska aaraa ijtihaadiya khulaasadu waxaa weeye hooyo raashinka laga bixinayo gabadheeda agoonta haysatay hadday faqiir tahay miskiin tahay waa la siin karaa wallahu aclam جزاك الله خير الجزاء سؤاليهني maanta intaas ayay inoogu dhan yihiin barnaamijkii majaalisu rabadaaniyana xalqadiisii ugu dambeysay ayaan maanta joognaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka baryaynaa soonkan soonkiisa inuu caafimaad iyo nabad nagu gaadhsiiyo cudurkan iyo balaayada jirtana inuu inaga iyo muslimiinta meel walba joogaanba uu naga dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khayr iyo qufraan iyo dembi dhaaf iyo raxmo uu noogu khatiya bisha rabadaan ayaan doonaynaa sheekhana inoo gabagabay barnaamijkii bisha rabadaan jazaaka allahu khayr inoo gabagabay ku duceeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala abshata inuu waafajiyo dambiga allaha dhaafo bisha ramadaan kuwa naarta laga xoreeyo annaga iyo muslimiintu allaha ku daro dhibaatooyinka cuwaysyaha allaha naga qaado cudurka iyo sharka iyo shaydaan hawlihiisaba allah ina dhamootiyo caafimaad degdega iyo barwaaqe iyo raayraynba ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidda ay la kowsato wallahu subxaanahu wa tacaala جزاك الله خير